awoowayaasheen ka soo jeeda galmudug maanta hadday halkaan imaan lahaayeen ayna arki lahaayeen duruufahan ku jirno iyo sida wiilashooda iyo awoowayaha ay u yihiin loo galayo runtii dhaar waxay ku mari lahaayeen inaysan dhalin. runtii kulankan maantaan halkan isugu nimid wuxuu ku soo aaday xilli loogu baahi badnaa oo ahayd inaan ka arrinsanno waxa deegaankan aan ka soo jeedno ee galmudug ka socda oo ay ku hayaan cadowga koowaad labaad ee saddexaad ee khawaarijta al-shabaab kuwaasoo dhib ka ugu weyn ay ku hayaan gobolkan aan joogno. runtii culimadii siyaasiyiintii iga horreeyey waa ka wada hadasheen dhibka ay ku hayaan khawaarijta dalkeenna. saan la soconno qof kastoo halkan fadhiyo qof kastoo Soomaaliya joogo meel kastaba khawaarijta al-shabaab dhibkay u geysata ma yaro. runtii waxa ayaan darro ah dadka iyo shacabka ka soo jeedo deegaankan galmudug in ehelkoodii walaalahoodii qaraabadoodii hortooda lagu laayo, caruurtoodii aan qaan gaarin hortooda lagu wato oo dagaal la geliyo, gabdhahoodii dumarkoodii ay ku faani jireen laga wato oo hortooda lagu xalaalaysto oo ay la tagaan deegaanada ay maamulaan. waa ayaan darro aad iyo aad u xun. waxaa iyadana tusaale usoo qaadan kara haddii laga reebo adeer cabdi qaybdiid awoowayaasheen ka soo jeeda galmudug maanta hadday halkaan imaan lahaayeen ayna arki lahaayeen duruufahan ku jirno iyo sida wiilashooda iyo awoowayaha ay u yihiin loo galayo runtii dhaar waxay ku mari lahaayeen inaysan dhalin. gacmaha suuqa ay kor saaran cilaan baa noo marsan, diyaar uma nihin dagaal ayay arkayaan. marka waa ayaan darro, waa in fadhiga aan ka kacnaa. runtii waa dagaal xaq ah oo xalaal ah, qofkii ku dhintana oo alla subxaanahu wa tacaala u tahay inuu cibaadadiisa u gutay. marka waxaa idinkula talinayaa ha loo istaago. imaanshaha aan halkaan imadna waa garb istaag inaan diyaar u nahay inaan frontierka ama jiidda ugu horeysa dagaalka aan idinla tagno dhammaanteen. sidaas ayaan halkaan ku nimid. waxaan rabaa sidoo kale inaan u bogaadiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha oo runtii ay ka go-an tahay maanta in lala dagaalamo argagixisada al-shabaab. siday khawaarijtu mar kasta ay sheegaan waxay yidhaahdaan waxaan nahay kalluun biyaha ku nool. kalluunkii waa annaga, biyahana waa shacabka. maanta biyihii ayaa kacay oo shacabka ah diyaar ayay u yihiin inay iska qabtaan shabaab. waa inaan fursaddaas ka faa'iidaysanaa oo aan u istaagnaa oo aan hoggaankaagii madaxweyne qoorqoor aan dabagalnaa, gacanna kugu siinaa. aniga ka ra-iisul wasaare hore maxamed xuseen diyaar ayaan u ahay waqti kasto meesha jiidda ugu horeysan inaan tago diyaar ayaan u ahay. waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro siyaasiyiinta Soomaaliyeed, mid xil hayo iyo mid aan xil hayinba. dhammaanteen dalkan wuu naga dhexeeyaa, shacabkan way naga wada dhexeeyaan. kala duwanaanta siyaasadda wax macno leh ma lahan. maanta shacabkiyaa diyaar ah. qof kastoo siyaasi ah waa inuu dalka yimaadaa, shacabkiisa u yimaadaa, dowladdiisa garab siiyaa, ciidanka qalabka sida garab siiyaa si looga hortago loo baabi'iyo cadowgan dalka haysto meel kastana ku faafay ee argagixisada khawaarijta. marka waxaan leeyahay qof kasto maanta waa inuu yimaadaa dalkan oo siyaasi ah. madaxweyne waa ku mahadsantahay soo dhaweynteeda qiimaha leh. anigana sidoo kale gobollo kalena waa tegayaa, laakiin gobolkan waa buddhigaygii. diyaar ayaan u ahay, waana igu tashanaysiin hadduu alla subxaanahu wa tacaala idmo. bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega Dhamays Plus. waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaasoo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel. macaamiil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo 7 ah. sidoo kale macaamiil ku shuba $15 oo hel
data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah. Macaamiil ku dooro xirmooyinka adeega Dhamays Plus, xawaare sare oo aan xaddi lahayn. Macaamiil uga shubo xirmooyinka adeega Dhamays Plus, adeega idahab code numberka xidig 114 gees, adeega idahab reseller code numberka xidig 304 gees. Ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees. Macaamiil, xirmooyinka adeega Dhamays Plus, nafsadaada ku soor.